xirfad walba markaa baratid inaad soo bandhigtid. Sidee usoo bandhigi kartaa? Inaad samaystid baraha social media platforms qaybahiisa kala duwan, waa digital marketing. iyo qodobkeen labaad wuxuu noqonaa Google AdSense-ga. labadaas ayaan waxaan rabnaa inaan faahfaahin ka bixino. sida assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kusoo dhawaad Alkhaliiji. ciwaankan wuxuu ku saabsan yahay laba xirfadood oo online lagu barto. haddii aad baratidna wax badan aad ka faa'iidaysid, iyo aqoontaada inaad kordhisid, iyo shaqo fiican inaad ku heshid. waxaan rajeynaa labadan ciwaan ama labadan qodob oo online lagu shaqeysto haddii aad baratid, waxaan rajeynaa insha Allah wax badan nafsadaada isbedel inuu ka dhici doono insha Allah. haddii aad ku cusub tahay channelkeena, fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay ugu faa'iidaystaan muuqaalada aan soo bandhigno. anagana waxay noo tahay dhiirigelin mar walba. kusoo dhawaad ciwaankeena. qodobkeena koowaad oo online lagu shaqeysto waa digital marketing. iyo qodobkeen labaad wuxuu noqonaa Google AdSense-ga. labadaas ayaan waxaan rabnaa inaan faahfaahin ka bixino sida ay u shaqeeyaan. haddii aad baratidna waxaan rajeynaa insha Allah wax badan nafsadaada inay isbedel muuqda ka imaan doono insha Allah. digital marketing waa online-ka waxyaabaha lagu iibiyo. waxaa hoos imaanaya sida Facebook-ga, Instagram-ka, Twitter-ka, waxaa kaloo hoos imaanayo Snapchat-ka, YouTube-ka, TikTok-ga, ay platform oo online-ka wax lagu soo gudbiyo qof walba user-ka leh. waxaa loo adeegsadaa in wax lagu soo bandhigo product-ga. digital marketing waxaa lagu soo bandhigaa badanaa sida product cusub inaad keentay macaamiishaada inaad usoo bandhigtid. waxay u baahan tahay inaad warbixintii Google-ka ama Facebook-ga ama YouTube-ka inaad kusoo bandhigtid. taas process waxay qaadanaysaa waa inaad taqaanaa xirfadaha design-ka loogu shaqeysto iyo video-ga. markaad baratid design-kaasi ama video-gaasi waxay kuu suurtagelinaysaa online-ka inaad ka shaqeysan kartid. waxaa laga yaabaa customer inuu kaasoo dalbado inaad u samaysid product-ga design-kiisa. way kuu fududahay adigana inaad mar walba design qurux badan u samaysid macaamiishaada si ay ugu faa'iidaystaan mar walba. ciwaankeena qodobkeena labaad wuxuu noqonaa Google AdSense-ga. Google AdSense-ga waxaa lahaa inaad kala shaqeysid Google-ka. sida Google-ka inta badan waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah shirkada waxay imaanaysaa Google-ka ama waxay ka dalbanaysaa iyadoo message joogta in xayeysiin lagu sameeyo dhammaan Facebook-yada ama meelaha website-yada badanaa laba ugu caansan waxaa Facebook-ga iyo Instagram-ka, Twitter-ka iyo website-yada iyo YouTube-ka. labadaas Google AdSense-ga waxaa hoos imaanaya haddii waxaa aragtay inta badan xayeysiinta aad ku aragtay warbixin marka website aad ka booqanaysid waxaa lagu soo bandhigaa qayb yar oo lagu dhahay qaybta xayeysiinta ama qaybta kali ku sii qaybta website-kaas u aadid. taas waxaa la qayb yar Google AdSense-ga. haddii aad leedahay website-kaas xayeysiin aad u furato waxaa laga yaabaa kliktaas ku sii qofkaasi inaad lacag badan aad ka shaqaysatid. qaybta kale inta badan aan aragno waxaa ka mid ah YouTube-ka. markaad daawanaysid video waxaa arkaysaa inta badan muuqaalkaada markuu socdo muuqaal markaad daawanaysid qayb yar lagu soo bandhigayo xayeysiinta escape leedahay. escape-kaas waxay ka caawinaysaa muuqaalkaasi in qofka loogu talagalay ama qofku rabay inuu si fiican click badan u helo. intaas markaad sidaas u samaysid oo inta badan oo xayeysiintaas ku muuqato oo Google-ka waxaa chance u haysataa inaad isbedel kale sidaas samaysid. waxaa kaloo samaysan kartaa website oo xayeysiin loo soo furayo. haddii is leedahay barnaamijkan uu ku culisay website-ka inaad samaysid website waxbarasho, website oo sports ama website wax walba aad kusoo gudbin lahayd, kadibna website-ka shuruudihii aad u buuxisid, kadib Google-ka aad ka codsatid xayeysiin in lagu furo. waxay ku xiran tahay daawashadaada, booqashadaada. inta badan isku mid marqan karaan website-yada saaid loo soo booqdo bishii waxaa laga yaabaa 10,000 kun inuu soo xareeyo. adigana haddii website oo normal aad wadatid oo dad badan ay soo booqanayeen inaad lacag badan aadan ka shaqeyn waa laga yaabaa. laakiin waxaa dadaal badan u samayn kartaa in wax walba cusub inaad kusoo kordhisid muuqaalkaada si daawasho badan aad u heshid. adigana mar walba waxaa helaysaa asxaab badan kugu cusub kugu soo xirmayso insha Allah. waxaad u baahan tahay xirfadahaas inaad baratid. sidee ku baran kartaa? waxaad ka baran kartaa YouTube-ka inaad booqatid iskoola qaarkood lagu dhiga inaad raadsid. waxaa kaga fudud YouTube-ka haddaad booqatid waxaa ku jira 10,000 kun koorsooyin dhammaystiran qaarkood ay isleedahay wax waa ka faa'iidaysaa. kadibna baaritaan badan aad samaysid ugu dambeyn waxaad arki doontaa meel sare inaad ka gaartid.
waxaa kaloo arki doortaa website oo Google-ka uu leeyahay koorsooyin free ay ku bixiyaan shahaadooyin caalami ah. waxaa laga yaabaa hal maalin gudaheed koorso inaad ku dhamaysid ama 2 maalin gudaheed. adiga waxay ku xiran tahay 2 saacadood 3 saacadood 10 saacadood ilaa 20 saacadood koorsada intaasay soconaysaa. haddii aad baratid koorsooyinka digitalka loogu shaqaysto waxaa bixiyo shirkadda Google waa free. insha Allah website-ka laga helayo linkiga qaybta description-ka ama qaybta faahfaahinta comment-iga ugu soo horeeya insha Allah waa bin garin doonaa, waad arki doontaa insha Allah. wuu fududahay, kaliya wuxuu leeyahay email-kaada gasho, password cusub sameyso, kadibna continue na register. kadib markaad sidaas u sameysid koorsadii sidaasaa ku bilaabatay. way isku fududahay insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontid labadan xirfadood oo online lagu shaqaysto. haddii aad baratidna insha Allah waxaan rajeynayaa, laakiin waxay u baahan tahay taasi xirfad walba markaa baratid inaad soo bandhigtid. sidee usoo bandhigi kartaa? inaad samaystid baraha social media platforms qaybahiisa kala duwan. wax walba tusaale ahaan graphic designer aad tahay ama video editor aad tahay ama wax walba tahay ama fashionista tahay, inaad website ama platformska social media inaad samaystid, wax walba aad qabatid inaad soo bandhigtid. ugu dambeyn chance waxaad u helaysaa suuqa waxaa ka jira inaad ka faa'iidaysatid. intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. muuqaalka ka ilaawin inaad like gareyso, share gareyso, subscribe gareyso. anagana waxay noo tahay dhiirigelin mar walba muuqaalo cusub inaan soo gudbino. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.